waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay maanta bisha ay ku beegan tahay bishii January sanada 2025 Soomaaliya waxaa si toos ah ugu soo degayo ciidamo cusub oo qayb ka noqon doona ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika. ciidamadan oo ka kala imaanaya dalalka wadanka Masar iyo waliba sidoo kale Uganda ayaa ku sii qulqulaya halkaasi sifa ay uga wareegaan ciidamadii hore u joogay ee wadamada Burundi iyo sidoo kale Ethiopia. laakiin taasi bedelkeeda Ethiopia ciidamo cusub oo dheeri ah ayay ku soo daabulaysaa gudaha dalka ilaa iyo xilligana lama garanayo ujeedada Ethiopia ciidamadaasi ay u soo gelinayso gudaha dalka maadaama laga reebay liiska wadamada ka howlgali doono gudaha dalka Soomaaliya. ciidamadooduna ay sii joogi doonaan howlgalka cusub ee madaxweynaha dalka uu gabi ahaanba u igmaday inay wadamadaasi qayb ka noqdaan. Ethiopia iyo Masar si weyn ayuu dagaalkoodu u laba qarxay tan iyo intii Soomaaliya ay heshiiska la gashay wadankaasi Masar. waxaa dhowrkii bari ugu dambeysay sidoo kale ergo ka socota Soomaaliya ay ku soo qulqulayeen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi Ethiopia. dabcan waxa laga wada hadlay bulshada Soomaaliyeed lama horkeenin sidoo kalena warbaahinta gabi ahaanba arintaasi looma sheegin balse qorshuhu wuxuu ahaa in gabi ahaanba la fuliyo heshiisyadii Soomaaliya Ethiopia ay ku gaareen shirkii ugu dambeeyay ee qaybta uu ka ahaa madaxweyne Erdogan madaxweynaha wadankaasi ee Turkiga ee ka dhacay magaalada Ankara. shirkaasi ujeedkiisu ahaa in Ethiopia waxay doonayso la siiyo sidoo kalena Soomaaliya waxa Ethiopia ka dalbanayso gabi ahaanba ay deyso oo kow ka tahay faragelinta qaawan iyo waliba la safashada maamulada ka soo horjeeda dowladda federaalka. dhamaanba intaasi Ethiopia ma aysan deynin oo waxay gabi ahaanba ballaarisay qorshayaasheeda ku aadan faragelinta maamulada ee ka horjeeda ama markaasi ba isku dhacsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ama khilaafka uu kala dhaxeeyo iyo waliba sidoo kale in ay dhaqaale fara badan siiso madaxda maamulada ciidamadeedu ay joogaan. dabcan Ethiopia ciidamadeedu laba maamul goboleed ayay si toos ah u joogaan oo ay ku badan yihiin marka laga reebo meelo kale oo ciidamo ay ka joogaan laakiin ciidamada ugu badan Ethiopiaanka waxay ku sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba sidoo kale Jubbaland. ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa Ethiopia ayaana 24 saac ee ugu dambeeyay ka soo tallaabay xadka ay la wadaagaan ama dowladda deegaanka Soomaaliya uu la wadaago maamulada Jubbaland iyo waliba sidoo kale Koonfur Galbeed. si kastaba dowladda federaalka arintaasi kama aysan hadlin. dhowr mar hore qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ayaa Ethiopia ku eedeeyay in ay wado gardarro iyo waliba sidoo kale dandaansi ay ka wado deegaana ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya farangelin qaawanna ay gabi ahaanba Ethiopia wado. intaasi marka laga tago kuwii shalayto Ethiopia ku tilmaamayay inay cadow tahay ayaa dhowrkii bari ugu dambeysay u kala dhuumanayay shirana la galiyay qaar ka mid ah madaxda wadankaasi Ethiopia ayagoo markaasi raadsanaya danahooda shakhsi iyo waliba dhaqaale ay markaasi Ethiopia kaga bedelanayaan waxa Ethiopia ka doonayso gudaha dalka. si kastaba Ethiopia howlgalkan cusub qayb kama aha sidoo kalena howlgalkan waxa qayb ka ah wadanka Masar oo Ethiopia ay si weyn isku hayaan. Ethiopia waxay sheegtay haddii Masar ciidamadeeda ay yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya in Ethiopiana ay xoojin doonto awoodda ay ku leedahay gudaha Soomaaliya sidoo kalena aysan jiri doonin ciidan Ethiopiana oo ka soo baxo gudaha wadanka. tii ayayna Ethiopia xoojinaysaa marka la eego ciidamadan tirada badan ee ku soo qulqulaya gudaha dalka. si kastaba dowladdii arintaasi loo igmaday ee ka hadli lahayd ee ka dhidhin lahayd waxay soo dhaweysatay dhammaanba cadowga Ethiopia gudaha Soomaaliya ayayna keentay waana arrin kale oo loo gogol xaariyo ah dagaal laba dal oo ka wada tirsanayn ama markaasiba Soomaaliya ka madax bannaan inay ku dagaalamaan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda xilli ummadda Soomaaliyeed ay taag iyo tabar u lahayd dagaalada kale ee ka dhacaya gudaha dalka ee u dhaxeeya qabaa'ilada shabaabka iyo dowladda iyo waliba siyaasiyiinta calooshooda u shaqaystayaasha ee colaadda ka dhaxawrinayo gudaha dalka. dhanka kale dowladda Soomaaliya waxay gabi ahaanba lumisay xiriiryadii iyo heshiisyadii ay la gashay wadanka Eritrea. madaxweynaha inta la doortay ama Xasan Sheekh Maxamuud inta uu soo laabtay waxa safaradii ugu badnaa uu ku bixiyay wadanka Eritrea iyo sidoo kale Uganda laakiin Eritrea waxa uu tagay in ka badan 13 safar oo diyaarad khaas ah intuu qaatay uu ka degay magaalada Asmara ee caasimadda wadankaasi Eritrea. dhamaanba madaxda wadankaasi waxay sheegeen in ay ka fiirsan doonaan xiriirka kala dhaxeeya wadanka Soomaaliya gaar ahaan dowladda uu hogaamiyo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud. gudahaan daawadayaal waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe wararkan ay kusoo gudbin doonaan tan iyo intaan midka kan xiga ku kulmi doono waxaa idinka tegayaa sidaas iyo ammaane allah.